Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta nagu xiran halkaad naga daawanaysaan waa Nacfi Media. Kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub. Maanta waxaan ka hadlaynaa baamiyaha iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. Isla socod wanaagsan. Baamiyaha oo dad badan u yaqaanaan sul dumar ama lady finger waa qudaar caan ku ah dalal badan oo adduunka, gaar ahaan dalka Afrika iyo Asia. Inkastoo ay yar tahay qaab kala duwan, haddana baamiyaha waxaa ku jira nafaqooyin fara badan oo caafimaadka bini'aadamka u fiican. Waxaa la cunaa qaabab kala duwan sida isagoo la kariyo ama la shiido, ama xitaa qudaarta lagu daro. Nafaqada koowaad. Baamiyaha waxaa ku jira nafaqo fara badan. Baamiyaha waa qudaar hodan ku ah fitamiino sida vitamin A, C, K iyo B6. Waxaa sidoo kale ku jira folate oo aad muhiim ugu ah haweenka uurka leh. Waxaa kale uu leeyahay macdano kala duwan sida magnesium, potassium, iron iyo calcium. Fiber fara badan ayaa ku jira baamiyaha. Fiber-ka ku badan baamiyaha wuxuu ka caawiyaa caloosha inay si wanaagsan u shaqeyso. Dadka la ildaran calool fadhiga ama constipation-ka ayaa ka helaya nafis markay cunaan ama ay shiitaan, sababtoo ah wuxuu fududeeyaa saxarada. Mida kale, xakameynta sonkorta dhiigga. Cilmi baaris badan ayaa muujiyay in baamiyaha uu leeyahay hoos u dhiga sonkorta dhiigga. Fiber-ka iyo waxyaalaha kale dabiiciga ah oo ku jiro ayaa yareeya kororka degdega ah ee sonkorta, taasoo ka dhigayso mid waxtar u leh dadka qaba macaanka ama sonkorowga. Mida kale, wadnaha iyo xididada dhiigga. Baamiyaha wuxuu caawiyaa hoos u dhiga dhiigga kolestaroolka. Baamiyaha wuxuu caawiyaa hoos u dhiga kolestaroolka xun, iyadoo kordhisa kolestaroolka wanaagsan. Tani waxay yareysaa khatarta cudurrada wadnaha iyo dhiig karka. Sidoo kale, wuxuu u wanaagsan yahay uurka iyo hooyada. Haweenka uurka leh waxaa aad loogu talinayaa inay cunaan baamiyaha maadaama folate uu ku jiro uuna ka hortagaya cilladaha ilmaha ku dhasho maskaxda iyo laf-dhabarka. Waxaa kale uu gacan ka geystaa samaynta unugyada dhiigga cas. Sidoo kale, ka hortagga cudurrada iyo difaaca jirka. Baamiyaha wuxuu leeyahay vitamin C iyo antioxidant. Wuxuu xoojiyaa difaaca jirka, taasoo ka caawisa inuu la dagaallamo caabuqyada iyo cudurrada. Sidoo kale, miisaan dhimiska iyo quruxda jirka. Maadaama ay kaloori yar tahay, fiber badan uu leeyahay, baamiyaha waa cunto ku habboon dadka doonaya inay miisaanka iska yareeyaan. Waxa kale oo ay maqaarka ka dhigtaa mid dhalaalaya. Baamiyaha waa cunto ku habboon dadka doonaya inay miisaanka iska yareeyaan. Waxa kale oo ay maqaarka ka dhigtaa mid dhalaalaya, timahana xoog iyo dhalaal u yeelaa. Wuxuu kale u fiican yahay indhaha iyo lafaha. Wuxuu leeyahay vitamin E, vitamin A iyo beta carotene oo ku jira baamiyaha ayaa ilaalinaya aragga indhaha, halka vitamin K iyo calcium uu ku leeyahay lafaha adkeysiga, isla markaana ka hortaga jabitaanka lafaha. Sidoo kale, baamiyaha wuxuu u wanaagsan yahay ka hortagga kansarka qaar. Antioxidant waxay ku burburisaa unugyada waxyeellada leh. Yareynta daalka. Iron-ka ama magnesium-ka ku jiro waxay yareeyaan daalka. Sidoo kale, wuxuu u wanaagsan yahay quruxda maqaarka iyo timaha. Vitamin C iyo maaddooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigaan maqaarka iyo timaha mid caafimaad qaba. Sidoo kale, ka hortagga bararka jirka. Wuxuu leeyahay antioxidant oo ku jiro waxay la dagaalamaan bararka iyo cudurrada. Sidoo kale, wuxuu u wanaagsan yahay xoojinta iyo difaaca jirka. Waxaa ku jira vitamin C iyo antioxidant oona ka caawiya difaaca jirka. Sidoo kale, wuxuu u fiican yahay caawitaanka dheefshiidka. Waxaa ku jira fiber, wuxuu ka hortagaa calool fadhiga iyo wuxuu hagaajiyaa shaqada mindhicirada. Sidoo kale, wuxuu u wanaagsan yahay xoojinta lafaha. Jirkoo biyo ku filan haysto. Biyaha badan oo baamiyaha ku jiro waxay ka caawiyaan jirka inuu ahaado mid qoyan. Baamiyaha waa qudaar sahlan oo raqiis ah, balse leh faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan. Haddii aad si joogto ah loogu daro cuntada, waxay qofka ka caawin kartaa caafimaad guud oo wanaagsan, laga bilaabo dheefshiidka ilaa difaaca jirka, wadnaha, lafaha iyo quruxda. Sidaa darteed, waxaa habboon in baamiyaha noqdo qayb ka mid ah cuntada maalmeed oo waa tahay daawadayaal, waxaan sii wadeynaa faa'iidooyinka uu leeyahay baamiyaha. Baamiyaha wuxuu ka mid yahay dhirta ubaxleyda, wuxuuna ka tirsan yahay qoys dhireedka loo yaqaano mallow.
muran ayaa ka jira halka uu baamiyuhu asal ahaan kasoo jeedo. Baamiyuhu wuxuu ka baxaa dalalka kuleylada leh, dalalka kuleylada ama kuleyl xigeenada iyo gobollada ay cimiladoodu ay diiran tahay ee caalamka. 3,500 oo sano ka hor ayaa la ogaaday jiritaanka geedka baamiyaha. Magaca sayniska ee baamiyaha waa Abelmoschus, laakiin magacyo badan ayuu leeyahay sida okra. Dalka Ingiriiska waxaa looga yaqaanaa lady's finger, Spain waxaa looga yaqaanaa guinea-combe, Portugal waxaa looga yaqaanaa guibero, Mareykanka waxaa looga yaqaanaa gump, Malaysia waxaa looga yaqaanaa kakanga, pendi ee dalka Hindiyana waxaa looga yaqaanaa bondigomba. Haddaba baamiyaha waxaa ku jira qeybaha kala duwan ee nafaqada, waxaana uu qani ku yahay faytaminada sida K, C, B1, folate, B9. Baamiyaha run ahaantii wuxuu xoojiyaa lafaha, waxa ku jira vitamin K oo ka qayb qaato sameyska lafaha, isagoo si chemical ah u gabeeyo ama u gaabiya niraahde, ama inta badan u adkeeyo borotiinada ka qayb qaato dhisidda lafaha. Sidoo kale waxaa ku jira calcium, phosphorus. Waxa ugu fiican yahay dadka qaba xanuunka sonkorowga. Warbixino caafimaad ayaa sheegaya in baamiyuhu yareeyo xawaaraha sonkorta looga nuugo dheefshiidka. Taasina waxay caawisaa in sonkorta dhiigga aysan aad u kicin. Caafimaadka hooyada uurka leh, baamiyaha waxaa ku jira faytaminada sida folic acid-ka loo yaqaano oo ka hortaga cudurrada inta badan ku timaada ilmaha uurka ku jiro. Muhiimna u ah hooyo walba oo uur leh inay qaadato faytaminkan. Waxaa sidoo kale ku jira vitamin B6 oo aad muhiim ugu ah hooyada, sababtoo ah wuxuu hoos u dhigaa waxyeelada soo gaari kara dareemaha qaar, gaar ahaana kuwa maskaxda iyo lafdhabarka ee canuga caloosha ku jira. Baamiyaha waxa uu wanaagsan yahay aragga, waxaa ku badan vitamin A, waxa uu ka hortagaa calool fadhiga sababtoo waxaa ku jira fiber lagu magacaabo muciliginous. Wuxuu sidoo kale kor u qaadaa difaaca jirka. Baamiyaha wuxuu qani ku yahay vitamin C oo ka qayb qaata in waxyaalaha sunta jirka laga saaro. Baamiyaha waxa uu yareeyaa cholesterol-ka ama dufanka. Baamiyuhu wuxuu dhowraa caafimaadka haragga, waxa uu hoos u dhigi karaa xanuunada wadnaha. Waa maado laga helo baamiyaha oo ku jirto oo hoos u dhigta dhanka xanuunada wadnaha. Maadadan u dhow markaasi sida xabagta, sida awgeed waxay ku dhegeysaa cholesterol. Ugu dambeynna waxa ay soo raacaysaa waxa loo yaqaano saxarada. Haddaba caafimaadka uurka, baamiyaha waxaa ku jirta maadada folate-ka. Sidoo kale wadnaha waynu ka soo hadalnay. Qeybo badan oo faa'iidooyinka uu leeyahay ayaynu eegnay oo aynu ognahay. Baamiyuhu waxa ugu horeeya geedaha lagu daaweeyo xanuunka macaanka. Cilmi-baarayaal tiro badan ayaa geedkan xoogga saaray si ay markaasi u ogaadaan qaabka uu macaanka ula dagaallamo. Waxaana qaar ka mid ay sheegeen in mustaqbalka rajeyn doonaan in baamiyuhu geli doono booska daawada kiniinada sonkorta la qaato. Waxaa la ogaaday in markaasi ay ku sameeyaan daraasaadyo badan lagu ogaaday arrintaas. Waxaa la arkay in baamiyuhu jirka uu ka caawiyo kontaroolka sonkorta, waxayna cilmi-baarayaashu ay ku hanweyn yihiin inuu daawada mustaqbalka laga sameyn doono taasi oo macaanka lagu xakameeyo. Waxaa lagula talinayaa dadka sonkorta qaba inay joogteeyaan cunista baamiyaha. Baamiyuhu waxa kale oo uu u roon yahay aragga iyo caafimaadka maqaarka, sababtoo ah vitamin A oo ka buuxa iyo sidoo kale awoodda antioxidant-ta. Markii la wareystay dadka ku daawoobay, waxay sheegeen in qaabka ay u isticmaalaan dhowr meelood lagu xusayo in qaabka loo adeegsado. Waan aragnay 5 xabo oo baamiya oo ka go'ay afka hore iyo afka dambe. Kadib u jar qaab dhaadheer, ku rid biyo kulul oo ku kari muddo 5 daqiiqo niraahde. Kadibna la dhig isla digsigaasi ama saxankaasi habeenkii oo dil. Subaxdii markaad soo toosto, cab biyaha baamiyuhu oo ku milmay, kadibna isaga cun. Ugu yaraan waa inaad samayso 10 maalmood si aad wax isaga garato. Bulsho badan oo sameysay sidaas waxay sheegeen sonkorta ay kontarooleen, xanuunada lafaha iyo kala-goysyadana inay kaga caafimaadeen. Waxaa la sheegay in baamiyuhu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan, laakiin kuwa aan kor ku xusnay waa faa'iidooyin la isku waafaqay laguna arkay cilmi-baarayaal badan. Inkastoo Soomaalidu badan ay aaminsaneen in baamiyuhu u fiican yahay kala-goysyada, laakiin cilmi-baarayaashu waa mid cusub oo awal laguma waafaqsaneen Soomaalida Hindida ku daaweyn jirtay tufta, riixa iyo lafa xanuunka. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. Subscribe inoo saar channelka, like,